فنانك شرما بوي وأمركي مساعدة ودينته كوقفو يا والله يا لو أنا قلنا عندنا عيبينين وعد قوني عفوا كتاجين ودورين دل يرى وحنا دي فانسين يا دل يرى فرا بدن دون سمرك ورا بين الدرك الدكتا فرحد وابدبت هذا قروح ذو عدبن كاجا حمل ما برندت هذا دقنكو وابعت هذا نفتي dagaal culus ayaa dhex maraya fanaanka Sharma Boy iyo Daaci Mukhtaar haddaba maxay isku haystaan Daaci Mukhtaar ayaa sheegaya in uu akoonkiisii TikTok Sharma Boy ka jabsaday macalinkan isla markaana diinta islaamka soo gudbiya sidoo kale Daaci Mukhtaar waxa uu sheegaya Sharma Boy inuu diinta islaamka u gafayo wax badan oo uu gabdhaha Soomaaliyeed fasahaadinayo aakhirana lagu cadaabi doono haddii uusan iska daynin sidan إلهي أي عذاب هاي Daaci Mukhtaar ayaanu leenahay balse waxa uu sheegayaa sheeqani in Sharma Boy uu hog iyo sidoo kale halaag ku socdo haddaba saaxiibayaal waxaan halkan kugula wadaagi doonaa Daaci Mukhtaar oo afka furtay iyo sidoo kale Sharma Boy oo u jawaabay balse fadlan intii aanan u guda galin subscribe saar channelka soo bandhiga media sidoo kalena gambaleelka u furo فنانك شرما بوي وأمركي مساعدة ودينته كوقفو يا والله يا لو أنا قلنا عندنا عيبينين وعد قوني عفوا كتاجين ودورين دل يرى وحنا دي فانسين يا دل يرى فرا بدن دون سمرك ورا بين الدرك الدكتا ودونا يا عورض وذا كوبان دجال لهاين ودد ذي هيا وحلوص صاري مع وسطا يقد عضي يو وحي ما عرفتي ما فهمين يا وحى له مرك ما بفهم يعني ميت قرن يا ما بقيه بقى ها أيان لو زندي وحي نقول دون برانكي عادية ودينتي ولا جو عياريو ودينتي ولا جو دليليو هي سلقة سميني ويا بريدة ود مغرسين حبين كتران كي قبصو إنه واحد يكون جرتوك لو كان ميسن أليس منكم رجل رشيد ميسن النجوبة جيرين مد عقل لبا ميسن يدك يدكو جيرين وهي سيه سايس كدايا أو يسقى ككافتوما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا البكولي هاي هدي هذا الكنبي جنا دقيسن ويدي هذا الكي إلهنا دقيسن ويدي سيدي هذا الكإن ير عذابك كوجيديا أو تقولك جهنم كوجريا سو دقيسن نساء سولي نمامه ولا يا لو أسجن النصيحة ندريا ولا لا ذكرنا النصيحة ندريا أسجن النصيحة ندريا وحيت هاي ما أنت وادويا برينا وآخره ويا ده آخره دبك يلا عيدك عاقش كين ميسو مالين كده ما تهيسها عن عيد كستور دقيستا ولا قبرك يكوجو إيمانا يا أو وحي حمان لجوش شقين يويا ده دينا مر كيد إنت وناقم بالجو حسوستا أو قرآن كي آخرنا ين يا أحاديث تبال دقيسنا يا ددنا مر كيد إنت حنتو دي هيسو دي يقولون كودي بال دقيسنا يا هذيك آخره وركو يا الله إلهنا وحن كجر جنين وكسو هذا يو ذاتك كلنا وحلا يا هاي sheeqan oo lagu magacaabo Sheekh Mukhtaar isla markaana barta TikTok ka haysta 600,000 oo qof ay ku xiran tahay ayaa inta badan soo gudbiya wanaagga isla markaana sheega dadku inay ka waamtoobaan xumaanta isagoo oo barta TikTok uga diiwaan gashan inuu yahay nin sheekh ah balse Sharma Boy ayaa soo weeraray waxa uuna isku dayay inuu ciwaankiisa ka jabsado maadaama dhowr mar uu heesiisa ka sheekeeyay isla markaana uu yiri Sharma Boy heesiisa yaa la dhageysan maadaama gabdhaha Soomaaliyeed ay ku fasahaadayeen balse sheeqan ayaa dhowr jeer ka jawaabay oo waxa uu yiri Sharma Boy ayaa isoo weeraray isla markaana ugu soo qaaday in uu ciwaankayga jabsadana ugu talagalay rahmatullah ya ahbabi saadin badan igu lahaydeen TikTok maxaad uga dhax qabanaysaa waad aragtaan maanta hay riskidaas uu qoraya waad ka bixi doontaan waxaan filayaa maalin dhow ducaadii aad iska saartaa إن يدين هاري دونان مفسدين تو مسات درالي كتهين يا قالكو وداركتان هاي ريسكي واح كستوان دري عطي كستوان دري ولكن والله ليالمانتا قالي نمبرنا مدام مناسب ما قنبر هذي الربان هساران قنبرت إن شاء الله بإذن الله تعالى بيجك كلنا وان سمي دنبال سيدي يعني نسكو إلى لين إنه دونا يدعوة إننا المرنا بوجا قبنين هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى يا ما هو اسكن مشغول سنة waxaan doonayaa dhambaal sidaha insha Allah ina kulligan booqano insha Allah oo maanta ku gaarsiin ilaa bari insha Allah dad insha Allah bidnillahi ta'ala ilaha idanki insha Allah khayrkana dhageyso khayrka aad garab istaagtaan jazakumullahu khayran
قال الله balse ينقل ilaahay ayaa iga badbaadisay oo faataxadeyda ayaan ku badbaaday ayuu leeyahay haddeertaan ayuu daaci mukhtaar sheegayaa in ninkani uu diinta islaamka 24 saac u gafo waxa uuna leeyahay Sharma Boy sida tan kuma wanaagsanay ka soo laabo sidoo kale Sharma Boy ayaa u jawaabaya oo dhahaya ashiiq miya waxaana isagu oo yasaya ninkan wadaadka ah isla markaana xifdiyay quraanka sidoo kalena dadka Soomaaliyeed wacdiye ما فاهمين يا دليرو ما فاهمين بد شيغيسان لكن قبريغا ما فهمتين اني مugdi uu qabrigu yahay ma fahanteen su'aalo qabriga inay ka jiraan ma fahanteen halkani waa qabuurihi weeyaa waa qarmadow iyo eel challenge Sharma Boy uu soo sameeyo baa idin haystee wallahi maalin baad fahmi doontaan fasawfa taraa idan kashafa al-ghubaru wa kilaha maalin baa la kala bixi doonaa fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah maalin baadna garan doontaan hadalkan idin leeyahay maalintaad fahmaysaan waa maalintaad halkan timaadaan ama challenge sameeya ama macawisihina tuura ama xubinkiina taranka dadka tus haddaba adigu ma waxaad taageersan tahay Sheekh Mukhtaar mise waxaad taageersan tahay Sharma Boy dad badan ayaa ribalay u soo galiyay wadaadkan iyagoo oo dhahayay sheekh waxaanu ka taageersanaa Sharma Boy oo waxa adigu aad sheegaysa ma aanan fahmin subhanallah waxaanu gaarnay heer culimadii ay ka faanis bataan fanaaniintu isla markaana fanaaniinta la taageero culimadana isla markaasi lagu caayo social media haddaba Soomaaliyay xaaladda Sharma Boy uu ku sugan yahay ayuu ku sheegay sheekani in ay tahay xaalad khatar ah isla markaana diinta islaamka oo 24 saac u gafo sidoo kalena waxa uu sheegayaa in aan qabriga la hilmaamin oo qabriga aan marnaba la eewlaawi karin maadaama ay social media ku jirto sheekada Sharma Boy ee ah ma fahmin haddaba saaxiibayaal waxa ay noqotay la yaab iyo argagax markii fanaan iyo sidoo kale sheekh ay isku dhax qabsadeen barta TikTok ah isla markaana ay isla markaasi dagaal xoog la isku qaadeen haddaba Sharma Boy ayaa ka jawaab celinaya isagoo oo si yasma ah uga jawaabaya sheekhan isla markaana heese ugu jawaabaya kuna karbaashaya oo dhahaya kuwa aniga horumarkayga ka xun ayaad ka mid tahay halka ninkani oo aayado quraan ah dileeshanayo isla markaana uu leeyahay war quraanka aanu ku dhaqanno oo aan iska daynay fisqiga iyo foolxumada isla markaana iyo faaxishada aad ku dhex jirtaan oo gabdhaha Soomaaliyeed oo aadna siin ku ruuxaysan heesaha Sharma Boy waxa uu na sheegay in qabrigu oo Sharma Boy la tagi doono waxaan isla markaana markii uu geeriyoodo laga daba dhageysan doono balse isaga loo dhageysanayo raxmadda iyo wanaagga uu soo gudbiyo haddaba saaxiibayaal waxa ay haddeertaan maraysaa xaalad khatar ah maadaama sheekhan iyo fanaankani ay social media isku haystaan waxaana mar dhow loo badinayaa inuu Sharma Boy jawaab kulul siiyo sheekhan maadaama Sharma Boy uusan ka gambanin waxyaabaha ay imtixaan ay sheeg ay dadku isla markaasi ay u soo jeediyaan asagoo oo si heese ah inta badan ugu jawaab haddaba ku xirnaa channelka soo bandhig media oo ku soo gudbiya wax kasto oo social media ka taagan mahadsanid